intaan dooranin ka hor waxa muhiim ah inaad isweydiisid limaada tatazawaj oo limaada takhtaar gabadha maxaa ku dooranaysaa sabab la sabab maxaa ma aha sabab ah u guursanay hada qof guursan raba daa tiraado war maxaa u guursanaysaa waa aroos rabtaa Soomaaliya waa guursan raba maxaa waa aroos laakiin hada tiraado wuxuu kule mawaalanta oo dadka dhan maxay isku aroos wuxuu kule dadka maxay isku guursadaan dadka waxay isku guursadaan muku anficayso taas hadaadan hadaf iyo aragti waadix aadan haysanin qofkan u guursanaysid oo leedahay waxaas qofka u guursanooya dadku waxay u guursadaan adii maxaa ka galay hadda intaan hada su'aashaas weydiin lahayn waa ku kala duwalaana qof walba uu qalbigiisa ka hadlaya wallahi waxa u guursanaa inaa is dhowro ilaahay baa guursaday riyo ma aragta nabi maxamed ma naamray inaan guursano oo taasi general ah way guud waaye laakiin adiga shakhsiyan maxaa ku riixay inaa guursatid su'aal waay laana qofka markuu guursado uu dagay ma gabdhaha waxa arkay internet saaxiib aan ku nahay inta la guursanin ka hor halka sawir halka post halka war ah halka maanta dhan comment ah baxay way aftaa markay guursadeen kadib kaal adigu arag meelay ka baxay wixii sawir la soo dhigi jiray wixii maaragtay comment la soo dhigi jiray male waxay isir marka dadka mustaqiriin nafsiyan noqdeen marka waxa ugu weyn waana run waxay maaragtay deganaantaas iyo xasiloonidaas qofku u raadina inuu xasilo oo uu dago ayuu qofka raadina inay ka baxno routiinka oo routine maxaa kaliya inaan noolaato waligaa taqaanay laakiin qof kale la noolaato hore uma soo arkin waxa u baahan tahay marka routiinka inaa ka baxdo nolol kale aa gasho tan saddexaad waxay dhaheen waxay u guursanayaan li ajli al jins qofkan baahidiisa qofkan kale ka jirto inuu ka dhameystirto taas ay u guursanayaan bal taas waxay noqotay kan koowaad ayay noqotay waana wax jiro waana wax sax ah waaye oo dadka maaragtay ay isku dhowrida lagu sheegay waa taa laba qof inay is dhowraan oo is dhameystiraan gabdhaha maxay xoog saareen marka gabdhaha hal marna waxay xoog saar al-hub wa romansiya jacayl ina helno iyo romantic iyo ma arag nin maanta dhan wadwadaayo inta noo kala wadwado waxa kale oo leeyahay ash-shu'ur bil amaan gabadha inay amaan dareento gabadha markay nin rag ah ku tiirsan tahay oo garabkeeda uu taagan yahay way ka amaan badan tahay markay kaliya tahay مثلا qof aa u timid waa la tashatay hay inaan guursadaan rabaa gabadha inaan guursadaan rabaa waxa gabadha iska ilaali buu kula iska ilaali hadda intaan guursanin ka hor ma aragta haweenka waa la iska ilaaliyaa yeesan kugu soo qabsanin yeesan kugu afbaranin jiljilacaysan kugu baranin wuxuu leeyahay jiljilacaysan kugu baranin yeesan ma aragta kugu arkin nin bi amaan nin noqo inaan nin tahay lagu ogaado gabadhii dad la soo tashanay waxa leeyahay ma guursan rabtaa ninkaas inuu wax helo kala ilaali hadduu wax kugu helo waa kula guursanaya maaragta iska ilaali maanta dhan jeebkiisa le u soo jeeso yuusan kugu afbaranin maskiinnimo lama tus ha isku tusin maskiinnimada ha isku tusin istishaaradii taas waay qoftii idoo buuxda marka isku imaana labadii qofood kan inta laga soo buuxiyey hadda weerari daafaca lagu kala jiraa marka استشارة تاس لما ده يا لا تشي تاس لما ده وحالة تشتا قف أقان إسلام وحاول كديري هاي وحبو كوسي هذينا علىها قبرة وليه قف وناكسوا علىها لا تشو استخارة سوءاتي إسك صبرتي صوت دارتي من هذا قف ما يستر المجرو قف بمال ولاية أنت رادين سقف بقف كده ما يستريه وسوء تجناني لي لكن قف كان واحد ملوق هذا كراه مش ملوق وحيابها قار قف كلوق هذا كراه waxyaabo qaarna qofka lagu ma qaadan karo ad markii inay ku kala soocayina laga rabaa waxan wallahi qofkan bini aadam uu yahay waa ku qaatay maaragtay waa caadi inaad tiraadid ugu dambeeyay maxaa marka istiqaara laba ragcad dukanaysa ilaa guurkan haduu qeyr iigu jiro ii soo dedeji kadibna gabadhii waa doolanaysa wabillahi tawfiiq ilaahay haydan barakeeyo hadda waa dhisna reer dhana dhisna hadda saana ku dhisna hadda reer dhana dhisnay hadda waxaan ka soo bilownay aragtidii fikradii ka soo bilownay waa iska soo ogaatay waa soo tashatay salaadii waa dukatay khalaas reerku waa dhisay barakallahu fiikum wiil iyo caano gabar iyo caano
gabar iska masaakiin oo ma aragtay aqoon ahaan adiga aan ku dhigmin ama wax soo barnina soo guursatay hada wixii kula fahmimee theory aan dhaha waxaan iyo ingiriis daa ku dadashay iyo carabi daa ku dadashay kula fahmimee wixii kula ma taqaan gabadhii saas oo kale qofta aqoon-yahanad waxay soo bartay waxay soo aqrisay qof waxay guursatay wixii aan la fahamsaneen waa ninkii dhaay maaragtay islaanta maalin kasta xabiibi waxay ii tira maalin kasta maaragtay wax soo bartay waa ninkaad maaragtay wax fiican ku dhahay xabiibi dhaay islaam waqti markaas uu leeyahay xabiibi dhaay way sirsaranaysaa ka waran ugu leeyahay marka waxa rabaa labada qofood takaafu taqaarub isku dhawaasho fikir ahaan saas oo kale مثلا أهداف أنا ولا شكل هذا وحيا باربته هنا قارتي قف وحاربته هدف لها تاي كل ما عرفته وحي كل هذا والته ماشي عن فريسة واحد اسمه قارس إذا هرتها قاري واي ويكون يتجبني أما قبل هدف إلا هذا هاي وحبرشة ذي إنه هيرك قارتن ويربته قرية ذي إنه هيرك قارت ويربته نكان يكون ستة ولا على محمد قشاع وحي حرت ماويسي وحي أنت ماويسي قرية فدي مثلا قبر عد ladan oo qani ka dhalatay oo ciidaha sarsara oo level 1 ka level 8 taagan oo habeen kasta jibis iyo chocolate cuni jirtay oo waxaan kala u aragtay ma aragtay cuntadan kala u aragtay waxaan loo baahnayno cawada dhan ku soo wacay waxaas ii soo mar maqaayada halka ii soo gad ka ii kan ku jirta loo keeni jiray marka aad iska miskiin oo bishii hal mar laga yaabo inaad jibis cuni jirtay guriga kuugu imaato wixii macnaha mustawihiini dhaqaalahaan iskuma dhawidiin saadirteed waxa rabaa labada qofood inay isku dhaw yihiin dhinacyada nolosha inay iskaga dhaw yihiin inay isku mid yihiin maaha laakiin inay isku dhaw yihiin inay isdhamaystiri karaan idaa jaakum man tardawna diinahu wa khuluquhu maxaa la wadaa dhaqankiisa dabeecadiisa ayaa laga wadaa qof diinta si kasta uu leeyahay dabeecada ka dhintay waa dhici karta دكتور سعد العتيق وحدي جري هدا أركته ويرنين سجود هالكا ما أركت أي مذوبيسي مظهر شكل الدين تكمل آت وسريسه لكن بقيل أهو يركعر سكست الدين تقوم موقت لكن دو بقيليه أما هذا الأذقي هي أما هوينك ودريه هي ما أركت خلقي ساعلنا دينتي سكلي وحكم مترس لأنه حاوي دينته وحاوي دقن على الروا دقن إنا نقطة على الروا مثلا قف كان دين وليه لكن نظرته للمرأة وهو سيسا وحيابا آديات كما ركت عن قبلها أوديقوا ويان أما أنا النعبة حقيقة قفك دين وليه لكن هوانك قبلها يوحو أركا ما ركت وح ما ركت متاع إسكاهو ألابيرو ما ركت لأم وحلو راح يستقون كذي إنيهين ما ركت هوانك تنو فرايا تنو قورسنة محي دينتي سدرس تريسا مركز وعمية لأنه وحان كساي أمارك حالات تربضن قبلو مارك أصحاب تيدا يقار أن أقانو وضد كراع مظهر كودي شكل كودي موقال كودي لكن مركي هادو ايكو صار دمادين نول آد يادوليتو ولي وحقف مسلم وكو دقم حتى كما دقمايان لكن وضد فرينتي مسجكي دين تحنبارسن مركي آد ياد اسكي إلاليا دا دينتي إلهي هيستو ضد كان إلهي ووقع بسنة سادرتي حسن البصري markii dadka la weydiinay maxaa la yiri gabadheedii u guuriya markii la yiri wuxuu yiri gabadhaada waxa u guurisaa qof Ilaahay ka cabsanayo haduu jeclaado yani ma dayacaayo haduu nacana ma dulminaay nabiga kaleey salaam islaantii gabadhii markay u timid ee ku tiri yaa rasuulallah labada nin ba shukaansanaya oo soo doontay inaan guursadaan rabaaye wax iga dheh nabigu muxuu yiri ninka Muaawiya la yiraahdo iyo Abu Jahmi ay kala hayeen Muaawiya wax ma haysto wuu yiri فسعلوكم لا مال له حول ما هيستو ماشي النبي محو فيري الجانب الاقتصادي لأنه قريق الدقالان ما نسمعيه ما تاقنانايو قفكو ينو فيري واي كان كلنا محو يري وشا اسكما ديغايو يري ما انت دان وشو كعنتكو هيستا تاس معناه waxaa وسفر بدن yahay ama haweenku garaaca qof haweenka garaaca dabeecadii ka dhunta haduu safar badan yahayna gabadha ninka waxay u guursatay ma aragtay inuu zawj u noqdo oo nin u noqdo inuu magacyaan u noqdo uma guursanin baayaal dhameystiro macnaheedu waxa waaye gabadhan waxa laga yaabaa wiilkan dhalinyarada inaysan ma ninkan inay ka heshay baahi ayada ka maqneedo midalan ama inay xoolo ku raacdo hanti ay ka maqneed ama qof ma aragta booska aabaheed u istaago aaba ma soo kornin ama ma soo helin qof ma aragta u dhimriyo booska aabaheed u istaagay rabtaa inuu qofkan u noqdo يعني جورك أصلك وحالي هذا تكامل حاجات
وإن ضدك لبض قفوت باهيهود إسلام استرايان أنت بدل لكن جيل بجيل كيس وإسلام استرا سما ضدك دليرة باهيدي سواء أنت بدل دم استرك رقف كلو دليرة لكن نبينا عليه الصلاة والسلام قف كدأه نوسو جورسدي قف كير نوسو جورسدي قف كوين نوسو جورسدي سدح لما حالي هذا كو الزوجة الأم الزوجة الصديقة هي الزوجة الابنة زوجة باسك هاي كوتاجن معناه حواي قف كوين أما زوج باسك أباه كوتاجن معناه حواي قف كوين الزوجة الصديقة محاوي جبر كل صاحبه أما ويل كل صاحبه معناه محاوي وقف اسكداتهين الزوجة الابنة أما الزوج الابن محاوي ننكا داير أما جبر ما عرفت ننكا كير نبي مركا زوجة الأم يا أوتاجنا قديجة أوتاجنت قديجة نبي محبو حين يسمرك وقاعد نين يرى أو إذي أبي مرة دنتين أو وحفي عن أهل سنين أو وحوها ما عرفت أديرك إسكالنور شن إلا واتسن مركو جار جوربه وبنكت وإسجور سدين قديجة مركا باسكي وحبو حسي حنانكي نحريستي هذا الكي وناك سنة كالمينتي بقالة هذه بأبو حسي محي تاجنتها مركا الزوجة الأم باسكي هاي تاجنتها نبي قديجة بوس كاسو بوحسي وكسا مال مري واحد مركو كسو دغاي حالده سامر الهي با اوغا الهي سبحانه وتعالى قديجة u diyaariyay si uga soo bixisana la yaab leedahay macna yaani asoo cabsanayo oo walwalaay ayuu yimid markuu yimid qadيجة xalay keento way xalisay cabsidiisi wixiisi oo dhan way xalisay inuu nabi noqon rabo qof bay u geysay waa la soo ogaaday markii hadhow nabi laga dhigana way rumaysay ilmaheedii dhan ayada u dhashay hantideedii bay siisay yaani booskii maxay u istaagtay hooyanimada الزوجة الصديقة وزوجة isku da'atiin ama kula saaxiib ah ummu salama xafsa zaynab haweenka nabi waxa yiraahdaa da'ahan way isku dhawaayeen الزوجة الابن nabi wuu soo maray yaa waaye عائشة رضي الله عنها fiir marka عائشة nabi wuxuu la dhaqmaayay naxariista iyo maaragtay asagoo konton jiro inuu gabar yar dhalinyaro uu la ordo oo uu yiraahdo kaale aan tartanne orod aan tartanne inuu yiraahdo maxaa waaye baahiyaheedii uu dhameestiray uu buuxinayay maaragtay ma dheen aniga nin oday ahay ma ordi kare meesha safariisana ima oran wuu hadallo wanaagsan uu yeeray maalintuu guursanaa maxaa la yiraahdaa koobkii caanaha loogu keenay Caaisha hal ugu bilaabo uu yiri kadibna afkeeda meesha ida ka cabtay afkeeda ee soo saartay uu nabigu ka cabay romantic ma u dhiman alayhi salaatu wassalaam يعني معناه وبوحنا مركو وعي محودي جري يا حميرات تي يري عسيده غدودنيده ودي جري مركو وعي محودي جري يا عاش يري قربكيساسي سو استاي جرت عياره فيرسن جرت halkaasay taagant inta madaxeeda ka soo taagay ciyaar fiirsane yaani maxaa waay gabar yar waxay uga baahneed oo dhan nabiga kaleey salaam waa u buuxiyay xaajaadkiisa waa u buuxiyay saadarteed kaleey salaam waa dhameystirna ilaahay baa dhameystir subhanahu wa ta'ala marka daada marka laga hadlayo waxaan dhahnay koob maxaa la fiirinayaa xaajaadka baahida qofkan ku qasbaysa maxaa waay ma jirto daa la dhaha intaas haday ka weyn tahay isku guursan ha u dhawaan dhalinyaradu ma aragtay waxaan lama dhowran karo iyo waxay sheegayaan ma aragtay waxa way qofkan idanihiisa iyo baahidiisa wax u gooniyo way qisooyinka ma aragtay xoogaa faniga aan maqlo meelaha qaar waa ka sheegaa si dhaxtaal noogu noqoto waxa la waxaan maqlay wiil qof soo arkaan iiga sheekay xaqiiqatan xaaskiisii islaantiisii wuu iska furay waliba gabadhaas oo iska furay gabar uu soo doortay ma ahayn gabar loo keenay bay ahayd gabadha loo keenay hooyadii baa ku dartay gabadhii qaraabo ah markii dambe hadana gabadhii wuu furay le hooyadii baa dib ku keesay way ka furtay sababtu ma garanaysaa qariib waa yaani hooyadii gabadha ma arki karto waxay arkaysaa wiilkan iyo gabadha isku qoqoslaayo wiilkan iyo gabadhan marmar qaar kaftamaayo wiilkan iyo gabadhan ciyaarayo wiilkan iyo gabadha isku faraxsan u jeeda markaas leedahay ugu qoslay wiilka ugu qoslay leedahay sababtu waxaa ida dara leehbo jaceelkaas iyo qosolkaas iyo labada qofood is jecel iyo leeda gabadhii ninka maarat maskaxdiisa way iga qabsatay wiilkay maanta dhow u qosol u sheekayna maskaxdii wiilku waa iga qaadan rabtaa ay ku leedahay reerkiisaas uu ku burburay xaqiiqatan saas uu ku baabay